Bismillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waa kulan shanaad iyo casharkii shanaad ee electrostatica. Casharkeena maanta waxa uu ku saabsan yahay Coulomb's law. Waxa loo yaqaan xeerka Coulomb. Xeerka Coulomb waxa uu ka hadlaa electrostatic force. Marka casharkeena waxa uu ku kooban yahay electric force-ka iyo waxyaabaha saameynta ku leh sida distance-ka u dhaxeeya laba charge iyo magnitude-ka ama size-ka labada charge sida ay u saameeyaan Coulomb forces-ka electric force. Okay, there is an electric force between any two charges. Waxa jira xoog electric ama electric force waxa loo yaqaano oo u dhaxeeya laba charge oo kasta between any two charges. Xooggaasi it is either attractive force or repulsive force. Waxa uu noqon karaa mid xoog labada charge isu soo jiidaya oo la odhanayo attractive force ama mid labada charge kala geynaya oo la odhanayo repulsive force. Marka xoog attraction iyo mid repulsion ayuu noqon karaa. Haddii lagu siiyo laba charge oo matalan kala sign ama calaamadoodu kala duwan tahay, mid waa plus midna waa minus, labada charge xoogga u dhaxeeya wuxuu noqonayaa attractive. Xoog isa soo jiidasho ayuu noqonayaa. Marka labadoodaas way soo jiidanayaan, attraction ayaa ka dhaxeeya. Haddii laakiin ay kala duwan yihiin wuxuu noqonayaa repulsive, xoog kala kaxaynaya. Halmeena goormay dhacdaa repulsive force-ku wuxuu dhacaa marka labada calaamadood ay isku mid yihiin. oo matalan hadday labaduba minus noqdaan labadoodu way kala boodayaan oo repulsion ayaa dhexdooda ka dhacaya. Halka waxaanu ka dareemaynaa waxa meesha ku jira qodobkii odhanayay like charges repel unlike charges attract. Labada charge ee isku midkiina way kala boodaan ama way kala tagaan, labada kala duwana way soo jiitaan. Okay, distance between the two charges is called distance of separation. Masaafada u dhaxaysa labada charge waxa loo yaqaanaa distance of separation baa la yiraahdaa. Macnaha waa masaafadii kala qaybinaysay. Waa distance-kii labada kala qaybinayay. Imika labada charge masaafo ay isu jiraan ama distance ay isku jiraan. Distance-ka labada u dhaxaysa waxaynu u qaadanaa badiyaa d ama xarafka d baynu u qaadanaa. haddaba distance-kaasi hadday tahay mid badan ama de masaafadu hadday aad u badan tahay aad ay u kala fog yihiin more hadday tahay, force-ka labada charge u dhaxeeya wuxuu noqonayaa small. ft baa noqonaysa small, xooggu u yaraanaya. Markastoo ay sii kala fogaadaan xoogga labada charge u dhaxeeyana uu yaraanaya. Haddii laakiin labada charge xoogaa ay isku soo dhawaadaan oo distance-ka ay noqoto small, distance-kii baa yaraatay, masaafadii baa yaraatay, marka xooggii uu soo kordhaya. xoogga labada charge u dhaxeeya wuxuu noqonayaa large. Markastoo ay isku soo dhawaadaan xooggan wuu sii badanayaa, force-kii wuu sii badanayaa. Okay, if the magnitude of the two charges is large, qodob labaad oo labada force-kan saameynaya waxa weeye magnitude-ka ama size-ka labada charge. Haddii magnitude-ka ama awoodda labada charge is large ay tahay mid aad u weyn oo charge-kana uu awood badan yahay kana uu awood badan yahay, force between them is also large. xoog labada u dhaxeeya sidoo kale waa mid aad u weyn. oo hadday labadan charge bay yihiin laba charge oo strong ah oo matalan 100 coulomb iyo 100 coulomb, xoogga u dhaxeeyana mid awood badan buu noqonayaa. haddii laakiin labadan charge labaduba ay yihiin laba weak ah, matalan haddii aad laba coulomb iyo laba coulomb un haysato, that means force-ka labada u dhaxeeya uu yaraanaya. marka halka waxaynu ka arkaynaa distance-kii haddii ay badato force-kii baa yaraanaya. marka distance-ka inverse buu ku yahay force-ku. halkana magnitude-ka ama size-ka labada charge haddii uu noqdo large, mid aad u weyn, force-kii wuxuu noqonayaa large. marka direct proportional buu labada leeyahay. marka waxaynu odhan karnaa force-ku waxa uu directly proportional leeyahay isku dhufashada ama product-ga labada charge. waa q iyo q oo la isku dhuftay, maadaama oo labadaba size-koodii ku xidhan yahay. isku dhufashada labada charge ayuu directly proportional leeyahay. laakiin force-ku waxa uu inversely proportional la noqonayaa distance-ka oo la isku wargareeyay, distance-ka labada charge u dhaxeeya square-keeda. haddaan labada qodob isku darno force-ku waxa uu proportional leeyahay ama saamigal la noqonayaa
productiga labada charge inverse proportion wuxuu la noqonayaa distance oo la isku wargareeyay taasina waxayna siinaysaa force-ku inuu leeyahay markaynu halka proportionality-ga aynu ku bedelno equal meesha waxa soo gelaya constant of proportionality calaamada constant-ka ayaa soo gelaysa saadaradeed force-ku wuxuu leeyahay KQ divided by d square qaacidadaasi ayaa noqonaysa qaacidada loo yaqaano Coulomb's law waana qaacida lagu helayo force-ka u dhaxeeya laba charge okay halka marka F ama F to waxay ka dhigantay waa electric force ama electrostatic force halbeega lagu cabirayana wuxuu noqonayaa Newton Q-da iyo Q-da waa labadii charge waa electric charges mid kasta halbeegeedu waa coulomb D-du waa distance of separation waa masaafada labada charge u dhaxaysa halbeegeedu waa meter baynu halbeegeeda u qaadanaa K-du waa constant of proportionality inta badan marka meesha equal ay timaado proportionality-gina ka baxaya constant labadii shay ayaa equation-ku constant yeeshaa constant-ka qiimihiisu waa 9 times 10 power 9 newton meter square per coulomb square marka intaasi waa SI unit-ka ay leedahay kana waa constant value-gi waa qiimihii had iyo jeer la qaadanayay K-da loo qaadanayay okay examples tusaalayaal baynu qaadanaa aynu qaacidada laftirkeedii ku shaqeynayno tusaalaha koobaad wuxuu oranayaa calculate the electric force between two charges of 4 coulomb and 5 coulomb separated by a distance in air of 10 meter xisaabi electric force-ka u dhaxeeya laba charge oo mid yahay 4 coulomb midna yahay 5 coulomb oo ay kala qaybinayso masaafo ama distance hawada ah oo qiyaasteedu tahay 10 meter si aynu uga shaqeyno marka hore waa inaad wixii given la soo baxdaa maxaad haysataa waxa lagu weydiiyay force waxa lagu siiyay labadii charge magnitude-koodii midna waa 4 coulomb midna waa 5 coulomb waxa lagu siiyay distance-kii labada charge u dhaxeeyay oo ah 10 meter K-duna waa constant qiimeedu ee 9 times 10 power 9 oo aan iyadu marnaba isbedelin marka inta given-ka markaynu halka ku qorano labadii charge iyo distance-kii iyo K-dii intiiba waynu haysanaa force markaynu helayna markaa qaacidii force-kaynu adeegsanaa qaacidadan waxaa la yidhahdaa Coulomb's law force-kana wuxuu odhanayaa waa K times labadii charge oo la isku dhuftay oo loo qaybiyay distance-ka oo la square la saaray ama la laba jibaaray marka aad ku bedesho qiimayaashan dee waad aragtaa K-dii iyadu waa 9 times 10 power 9 sorry 8 maaha waa power 9 labada charge midna waa 4 coulomb midna waa 5 coulomb mid kasta qiimihiisa dhigaysaa distance waa 10 square baad saaraysaa marka markaan qiimayaasha ku bedelno waa 9 times 10 power 9 times 4 times 5 divided by 10 square marka markaynu isku dhufano xagga sare waa 180 loo qaybiyay 180 loo qaybiyay 100 waxa raaca 10 to the power of 9 baa raaca oo jibaarka ayaan loobin marka labada la isku qaybiyo 180 newton kama dambaystu waa 180 times 10 to the power of 9 newton bay noqonaysaa halbeegyada haddaynu fiirsano xagga sare waxa yaala K oo qiyaastii oo macnaheedu yahay ama halbeegeedu yahay newton meter square per coulomb square labada charge mid walba coulomb baa lagu cabiray waa coulomb iyo coulomb distance-kuna waa meter square d square ba meesha taala marka waa meter square marka waxa iskoosan kara coulomb square iyo labadan coulomb oo la isku dhuftay iyaguna waa mid walba iskoosanayaan meter square na waxaan goosan karaa meter square marka waxay noo soo haraya newton force-ku marka halbeegiisu waa newton charge can be measured in microcoulomb and millicoulomb charge-ka sidoo kale waxaa lagu cabiri karaa halbeegyada yaryar ee microcoulomb iyo millicoulomb oo 1 microcoulomb oo calaamada loo qoraa wuxuu u dhigmaa 10 to the power of 6 minus 6 coulomb 1 millicoulomb wuxuu u dhigmaa 10 to the power of minus 3 coulomb marka halbeegyada yaryar iyakana waa la adeegsadaa example 2 waxaa lagu yidhi calculate the force between 20 microcoulomb and 30 microcoulomb separated by 10 cm in air waxaad xisaabisaa force-ka u dhaxeeya labadan charge ee midiyay 10 microcoulomb midna 30 microcoulomb waxa kala qaybinayaa
distance 10 cm oo hawada ah. Okay, haddaynu gifanka soo qaadano waxaynu haysanaa labada charge mid kamid ah waa 20 microcoulomb. maxaan ku yiri micro markasta waa 10 power minus 6. marka 20 microcoulomb macnaheedu waa 20 times 10 power minus 6 microcoulomb. micro dad meesha ka saaraysaa 10 power minus 6 baad soo gelinaysaa. sidoo kale waxaanu haysanaa 30 microcoulomb charge ka labaad 30 microcoulomb isaguna waa 30 times 10 power minus 6 coulomb buu noqonayaa. waxaanu haysanaa distance-kii oo 10 cm ah keedii oo 9 times 10 power 9 newton meter square per coulomb square ah iyo distance-kii oo 10 cm ah laakiin laynagama ogola centimeter. distance-ku waa inay meter ahaataa markaa centimeter-ka boqol baad u qaybinaysaa waxaa soo baxaya 0.1 meter. intaa markaynu haysano ayaad ku shaqaynaysaa. waxaad leedahay horta waxa muhiim ah inaanan iloobin qodobka ah qaacidadeena waxa ku jira KQ divided by d square. k waynu haysanaa iyadoo qiimaheedii caadiga baynu haynaa. labada q mid walbaan haysanaa midna waa 20 times 10 power minus 6 midna waa 30 times 10 power minus 6 laakiin d hadday inoo tahay 0.1 meter halkan maxaa yaala waa d square baa yaala. marka distance-ka c square garayso maadaama d square haddaad d haysato d square baad u baahantahay. marka d square waa 0.1 square markaad square-tay adna waa 0.01 si aad marka qiimaha usoo qaadooda iron halka u dhigto. marka wixii gifana ku bedel qaacidada. marka waxaad haysataa intaa mid kasta halkeedii baa lagu bedelay maca d square-tay oo aad sii salaxday adna waad ku bedelanaysaa. kadib marka waxa ku soo baxaya xagga sare markaad isku wada dhufato matalan power-ku hadduu doonaha ku yaal laakiin 9 lagu dhuftay 20 lagu dhuftay 30 waa 5400. halkana waa 10 power 9 iyo 10 power minus 6 iyo 10 power minus 6 saddexdaba power hadday leeyihiin baystan yihiin 10 ka mid un baa laga soo qaataa dabeedna power-ka power 9 kiina soo qaado minus 6 iyo minus 6 na sidooda u soo qaado calaamadu iyaga ku hagaya. macnaheedu marka waxay ka dhigantay 5400 oo lagu dhuftay labada minus 6 iyagu waa minus 12 plus 9 waxay noqonayaan minus 3. marka waa 5400 times 10 power minus 3 weli maxaa yaharsan xagga hoose waa 0.01. alxaasil markaan intaa standard form u qorno aynu power ka saarno waayo 10 power minus 3 halkaas tirada ka bilaabasayo 3 jeer bad dib u noqonaysaa 1 2 3 point-ku halkaas ku dhacay waa 5.4. maxaa loo qaybinayaa waxaa loo qaybinayaa distance-kii oo 0.01 marka intaa 0.01 loo qaybiyo waxaa ku soo baxaya 540 newton. marka force-ka aynu soo saarno waa 540 newton. what will the force between two charges be? muxuu noqonayaa xooga laba charge u dhaxeeya haddii waxyaabahan soo socda la helo. if one of the charges is doubled haddii labada charge mid kamid ah la limin laabo maxaa ku dhacaya force-kii. haddii labada charge mid kamid ah la limin laab laga dhigo double maxaa ku dhacaya force-kii. okay waxa ku dhacaya inagu waxaanu haysanaa qaacida odhanaysa force-ka in lagu helo KQ divided by d square. taasi waa qaacideeni. labada charge labadan q mid kamid ah haddii laga dhigo double limin laab haddii laga dhigo matalan haddii laga dhigo k times q times 2q divided by d square maxaa isbedeli karaa ama force-kii muxuu noqon karaa. force-kii wuxuu noqon karaa qiimayaashii waa sidoodii. iminka haddaad eegto halkaa keeda hadday qiimo leedahay q-dana ay qiimo leedahay q-dana ay qiimo leedahay way isku wada dhici lahaayeen values-ka ama qiimayaashaasi laakiin maxaa dheeraad ku ah labadaas unbaa ku dhacaysa. sidaa daraaddeed force-kaaga uu limin laabmaya marka force-kaagu wuxuu isu bedeli doonaa inuu noqdo limin laabka intii uu marka hore leegaa 2f buu noqonaya. f-taadii asliyan originally intay ahayd limin laabkeed bay noqonaysaa 2f. su-aal labaad bayna odhanaysaa if both charges is doubled haddii labada charge ba la limin laabo ka war kanoo keliya hadda 2q laga dhigay laakiin labadaba haddii laga dhigo 2q labadaba haddii la limin laabo macnaheedu waxay ka dhigan tahay labadan labaad ee soo kordhay labadan 2gan iyo 2gan labada 2 ba isku dhici doona 4 bay noqon doonaan. marka force-keena cusub wuxuu noqon doonaa 4f wuu afar laabmaya bay ka dhigan tahay. force-keena cusubi afar laab intuu marka hore leegaa ayuu leegaanayaa. su-aasha saddexaad ee su-aashan ku jirta if the distance of separation is doubled haddii masaafada
la liban laabo distance-ka haddii la liban laabo maxaa dhacaya xasuuso markasta qaacidadaynu haysanaa inagu waxa weeye fk equal kqq divided by d square haddii d da laga dhigo liban laab macnaha haddii d da laga dhigo 2d tusaale macnaha waxaan ka wadaa haddii qaacidadu noqoto kqq divided by halkii d ku taalo 2d ka dhig laakiin square-ka dusha ka fuulaya marka haddaad square-to waxay noqonaysaa qaacidadeedii kqq divided by 2 ga haddaad square-to waa 4 d na haddaad square-to waa d square-teedin bay kusoo noqonaysaa waxaynu se garanaynaa qaacidadeena waxa kusoo kordhay waayo qaacidadeenu inaga waxay ahayd f equal kqq divided by d square maxaa dheeraad ku ah qaacidadeenu rasmiyan intaasun bay noo ahayd intaa gaarka ah ayay noo ahayd waxaa dheeraad ku ah afartaa hoosta taala marka waxaynu odhan karnaa waa qaacidadeenii ama waa force-keenii oo afar loo qaybiyey marka force-ka cusub ee soo baxaya wuxuu noqonayaa force-kaagii originalka ahaa oo 4 loo qaybiyey marka macnaheedu waxay ka dhigan tahay haddii distance-ka la libin laabo force-kaagii 4 jeer buu qiimihiisu hoos u dhacaya waa inaga hore u nidha haddii distance-ku ay korodho force-ku wuu yaraadaa qodobkaasuu maskaxda ku hay intee leeg buu kordhaaba haddaba meesha taalla haddii uu distance-ku hadday libin laabanto macnaheedu waxay ka dhigan tahay distance-ku hadday libin laabato force-kaaga 4 jeer buu yaraanaya 4 times 4 unbaad u qaybinaysaa force-ka aad haysato tusaale haddii force-ka aad haysataa uu ahaa 200 oo newton distance-kaaguna ay ahayd 20 mitir haddii distance-kii 40 mitir laga dhigo force-kii 200 newton ahaa 4 unbaad u qaybinaysaa marka wuxuu noqonayaa 50 newton buu noqonayaa force-kaagii macnuhu waa sidaa weli su-aashu way socotaa waxaa lagu yidhi if the distance of separation is halved maxaa dhacaya haddii distance-ka la half gareeyo yacni haddii laba loo qaybiyo distance-kii maxaa force-kii ku dhacaya waxaa ku dhacaya afraad waxaynu soo qaadanaa qaacideenii oo qaacidadan awal waa tii xaggan inoo ahayd f equal kqq divided by d square halkii d taalay baa la half garaynaya 1 divided by 2d baad dhigaysaa dabeedna maxaad oranaysaa square marka haddaad square garayso dee halfkan 1 divided by 4 buu noqonayaa qaacidada waxay noqonaysaa kqq divided by 1 divided by 4 d square hadda maxaa qaacidadeena ku cusub qaacidadeena waxa ku cusub 1 divided by 4ka inta kale waa iska caadigeeni waxa ku cusub macnaheeda intaas waa intii qaacidadeena ahayd kqq divided by d square waa force-keeni caadiga ahaa laakiin 1 divided by 4 baa ku cusub macnaheedu marka waxay ka dhigan tahay force-keeni wuxuu noqday force-ka cusub wuxuu noqonayaa force-keeni hore intuu leegaa oo loo qaybiyo 1 divided by 4 the 1 divided by 4 haddii loo qaybina 4-ka f taas ku dhacaya marka force-ka cusub wuxuu noqonayaa 4 laab force-kaaga hore intuu leegaa marka haddii distance of separation-ka la half gareeyo ama laba loo qaybiyo force-kaagu wuu 4 laabmaya conclusion-ka qaybtana waxay noqonaysaa if one of the charges is doubled haddii labada charge mid ka mid la libin laabo force-kaaga wuxuu noqonayaa libin laab intuu leegaa libin laabkeed times 2 badanaysa if both charges is doubled haddii labada charge ba la libin laabana force-kaaga wuxuu noqonayaa 4 laab intuu marka hore leegaa 4 laabkeed if the distance of separation is doubled haddii masaafada labada force kala qaybinaysa la libin laabana force-kaagii wuxuu noqonayaa 4 jeer buu yaraanayaa ama intuu marka hore leegaan bada 4 u qaybinaysaa if the distance of separation is halved haddii masaafadan kala qaybinaysa la half gareeyo laba loo qaybiyana force-kaagii wuxuu noqonayaa 4 laab intuu marka hore leegaa tusaale yar hadii siiyo waxaa lagu yidhi the force between two charges is 40 newton xoogga labada charge u dhexeeya waa 40 newton what's the new force muxuu noqonayaa xoogga cusub when the distance between the forces is doubled haddii distance-kii la libin laabay hadda maxaan ku yidhi haddii distance-kii la libin laabay force-ku muxuu noqonayaa inagu halkan bal eeg hadda if the distance of separation is doubled haddii distance-ka la libin laabo force-ka haysatay maxaad u qaybinaysaa 4 baad u qaybinaysaa hadda force-ka haysatay waa maxay waa 40 newton marka waxay ka dhigan tahay force-kaaga cusub waa force-kii hore haysatay oo 4 loo qaybiyo marka 40 divided by 4 waa 10 newton buu force-kaaga cusub noqonaya sideen ku xasuusan karaa waxaad ku xasuusan kartaa hadday distance-ku korodho ogow inuu force-ku yaraanayo haddii labada charge ay isku soo dhawaadaan oo distance-ku ay yaraatana dee force-ku wuxuu xooganaanaya force-ka labada u dhaxeeya mid strong ayuu noqonayaa okay
saddexdaas su'aalood ee exercise-ka labadii qaacide meesha inoo yaalun baad isticmaalaysaa. Su-aasha koobaad waxay ku odhanaysaa two charges of 10 microcoulomb and 40 microcoulomb are separated by 20 cm in air. Calculate the force between them. Laba charge oo mid yahay 10 microcoulomb ka kalena uu yahay 40 microcoulomb ayaa waxa kala qaybinaysa 20 cm oo hawa ah. waxaad xisaabinaysaa force-ka labada u dhaxeeya waa ft marka qaacidada Columbus law baad isticmaalaysaa kqq divided by d square. Is the force repulsive or attractive? Xoogaasi ma mid repulsive ah mise waa mid attractive ah? Su-aashaasi aad uga jawaabi karaysaa labada charge baad eegaysaa. labadooda charge hadday labaduba isku calaamad yihiinna waa repulsive, hadday labada calaamadood kala duwan yihiinna waa attractive. su-aasha labaad waxaa lagu siiyay laba charge oo mid yahay -10 microcoulomb midna yahay +10 microcoulomb. waxaa kala qaybinaya 20 cm oo air ah. haddii jeer centimeter-ka waa inaad meter bedeshaa ka hor intaanad shaqo qabanin, waayo mid centimeter lama doonayo, waxaa la rabaa distance-ku inay meter ahaato, charge-kana halkaa microda waad ka saaraysaa iyo coulomb baad u bedelaysaa. marka mid kasta waxaa ku dhacaya 10 times -6 10 to the power of -6. waxaad soo saaraysaa force-ka labada u dhaxeeya. force-kaasi ma repulsive ba ma attractive ba. marka aad adeegsanayso qaacidadii odhanaysa F = kqq divided by d square, ogow calaamadahan ma isticmaalayso, waad iska daynaysaa. minuska iyo pluska labadaba iska daa, wax macnaa samayn maayo. even haddaad isticmaasho isku dhufashada calaamadahani ma saameeyaan. -10 iyo +20 haddaan isku dhufto waa -200. force-kaygu matalan hadduu -200 noqdo, minuskaasi iima sheegayo inuu force-ka yaraaday iyo inuu batay toona, laakiin wuxuu ii sheegayaa direction buu tilmaamaa marka xagga force-ka laga hadlayo. The force between two charges is 100 Newton. xooga laba charge u dhaxeeya waa 100 Newton. What's the new force? muxuu noqonayaa xooga cusub if the distance of separation is halved? haddii masaafada labada u dhaxaysa la half gareeyo. distance of separation-ka haddii half laga dhigo, adaa garanaya force-ku wuxuu noqon doonaa xidhitooda.